Asalaamu calaykum magacaygu waa Siraaj Jacayl Cabaas oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Salaan kadib fursadan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto caabuqii COVID-19 oo markii hore halkan inagu haleelay oo wadanka aan u gudbin laakiin hadda fara kulul ku haya dalkeenii ama dadkeenii Soomaaliyeed. Baan rabaa fariin inaan u diro fariinta intii aanan dirin waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo bulshada Soomaaliyeed madaxweynihii hore ee geeriyooday Cali Mahdi Maxamed Allah naxariista jannaha ka waraabiyo iyo taliyihii booliska Soomaaliyeed General Ahmed Jaamac Muuse iyo Suldaan Ahmed Jaamac Xirsi oo isagu ku geeriyooday Djibouti iyo ani adeerkay oo ku geeriyooday degmada Ararso gaar ahaan qabalaha Digirley Allah naxariista jannaha ka waraabiyo aanan u ducayno. intaas ka bacdi bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka wacyigeliyo xanuunkan oo runtii dhamaanteen ka dharagsannahay muddo sanad ka badan hadda adduunka dhan fara kulul ku hayay ka bulsho ahaan iyo waliba ka Soomaali ahaan gobolka Minnesota fara kulul buu ka hayay laakiin dhalinyarada iyo aqoonyahanka oo maaragtay gacmaha is qabsaday bulshadana wacyigelin fara badan u sameeyay Allahna uu la garab qabtay marka alxamdulillah maanta kula waaweyn baa la gaadhay dadku waa ka dharagsan yihiin waa la wacyi geliyay marka hadda dalka Soomaaliya baa waxaad moodaa si gobolkan aan joogno si ka daranba in uu ugu hayo fara kulul oo runtii dhaqaatiir fara badan joogay qalab caafimaad yar yahay marka bulshada Soomaaliyeed ee degan especially caasimadda waxaan ka codsanayaa ka dhalinyaro ahaan iyo ka waalid ahaan iyo ka aqoon-yahan ahaan iyo ka mas'uuliyiintaba inay ka qayb qaataan sidii bulshada loo wacyigelin lahaa bulshadana loogu sheegi lahaa waxaana khatarta uu leeyahay iyaga oo maaragtay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ba ka daawanaya maalin walba kiisaska iyo inta qof u dhimanaysa dhalinyaradana waxaan u sheegayaa fadlan in ay u xisaabsanaato lugtooda meesha ay dhagayaan sababtoo waalidiin jiljilicsan baa la nool oo guryaha kula nool marka waxaan idin leeyahay xanuunada ha u soo qaadina inkastoo Ilaahay wax walba ilaaliyo laakiin waxaan idin leeyahay la taxadaro waalidkana ha la wacyigeliyo maaragtay qof walba oo maaragtay dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo jooga Muqdisho iyo dhammaan dalka Soomaaliyeed ba waxa aan farayaa qof walba waa inuu qaataa awaamirta wasaaradda caafimaadka iyo wacyigelinta dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo dhaqaatiirta in la dhageysto loona dhaga nuglaado oo maaragtay dhalinyaradu meelaha kubadda ku ciyaarayso maqaaxiya wax lagu cuno fadhi ku dirarka meelaha lagu mudaharaadayo waxyaabahaas oo dhan la joojiyo amarka dawladda soo saartana aad loo tixgeliyo lana raaco lagana dhageysto qaybna laga noqdo waliba wacyigelintan oo waalidka aad gaarsiisaan maaragtay shaarka aad gaarsiisaan lana soo dhaweeyo sidaas waa sida kaliya ee maaragtay dalkeena iyo dadkeena aan ku badbaadsan doono dad walba dalkooda iyo dadkooda iyaga u kacay marka dhalinyaro waxaan leeyahay qaybtiina qaata gobolka Minnesota dhalinyarada Soomaaliyeed runtii way isku xidhan yihiin waa midaysan yihiin arrimaha ay qabtaan ama aan qabano dhalinyaro ahaan waxa kamid ah in dadkii Soomaaliyeed ee joogay wadankii in bil walba oo Ramadaan markay soo galayso aanu raajin u qaybino waliba annagoo soo dadajisnay bishan iyadoo wali Ramadaan inta la gaarin hawlahanagina bilaabanay waana nagala qayb qaadan kartaan sababaha aan u soo dadajinay waxa kamid ah COVID-19 kan iyo abaaro iyo gaajo baahsan oo dhulkeena Soomaaliyeed ka jirta marka idinkuna dadka masaakiinta la caawiyo hay'adaha samafalkana waxaan ka codsanayaa in ay hawlihii samafalka ee lagu yaqaanay ay soo dadajiyaan kana qayb qaataan wacyigelinta COVID-19 ama corona